dhacay magaalada Birmingham kulan aqoon isweydaarsi ah oo isugu yimaadeen qaar ka mid ah aqoon-yahanada ku takhasusay waxbarashada kuwaas oo isku dhaafsaday fikradooda ku aadan sidii loo horumarin lahaa waxbarashada guud ee Soomaaliya gaar ahaan gobolada Puntland. dabcan baahidaas oo ah tan ugu weyn ugu hooseyso hadaan la xusay oo ah la dagaalanka jahliga macnaheedu qofku inuu waxna akhriin yaqaan waxna xisaabsan yaqaan waxna qori yaqaan baahida ku xigto oo ah in la soo saaro dad xirfad dhexe leh idad xirfad sare leh shirkaas ay soo abaabuleen ururka hadaf waxa halkaas ka hadlay xildhibaan Saciid Cali Shire waxaana ka mid ahaa hadaladiisii waxaan leeyahay hawsha ugu horeysa waxay noqonaysaa in sare loo qaado wacyiga bulshada wacyiga maamulka oo la fahansiiyo ahmiyadda waxbarashadu leedahay maxaa keenay in ay miisaaniyadda waxbarashada Puntland noqoto 2.4 sida ay uu sheegay Dr. Maxamuud laba element baa jira mid waxa weeyaan markii hore baa Soomaaliya miisaaniyadda waxbarashadu waxay ka imaan jirtay inteeda badan hay'adaha deeqda bixiya UNDP daraasaday samaysay 2005 waxay sheegtay in markii ay dhaxday dawladda dhexe Soomaaliya wax ka badan 70% miisaaniyadda tooska ah waxbarashadu ay bixin jireen hay'ado ay bixin jireen ay sheegtay marka laba arrimood ba hadda isku darsamay waxa isku darsamay hay'adihii bixin jiray deeqda waxbarashada oo prioritieskooda ay isbedeleen oo Soomaaliya caalamada ay siinayaan ay u badan tahay quudinta dadka iyo la tacaalida dadka dhibaataysan iyo faqriga iyo masaa'ibta kale oo ka socda Soomaaliya oo educationkii prioritigooda hoos u dhacay iyo midda labaad oo sida hadda aqoona Cali uu sheegay daraasadda tirada iskuulada oo sare u kacay tusaale ahaan meesha ku 990 markii dawladdu dhaxaysay dugsiyada hoose dhexe sare ee ka furan Soomaaliya ay tiradooda ahayd 900 2005 iskuulada ka furan Soomaaliya 1500 bi madaxa la sii galiyay waxaa kaloo halkaas ka hadlay Maxamuud Cabdiraxmaan Maxamuud oo wax ka dhiga jaamacadda waddanka Sacuudi Carabiga waxaana hadaladiisa ka mid ahaa waxaan u baahanahay in dadka aqoon-yahanka banaanka joogay ay daraasaad noocan oo kale ay u qumaanay sameeyaan sida hadaf ay u qumtay oo kale in la identify gareeyo xaggee bay ka fit gareyn karaan ama meesha kaga haboon ay ka buuxin karaan baahida jirta ma inay seminar bixiyaan ma inay macallimiinta training siiyaan ma inay ka qayb qaataan tayeynta manhajta naftigeeda ama mideeyaan manhajta waxaan filayaa xataa inaanay jirin connection guud oo isku xira dadkan education providerska ee wadankii ay wax ka bixinaya oo group kasta ay isaga oo wax weyn qabanaya ama bulshada baahi weyn ay qabto daboolaya ayuu haddana waxaa loo socdaa si parallel qolo walba qaabka iyagu ay vision-koodu yahay wuxuu aragtay wuxuu wadaan ma jiro wax central oo standardka waxbarashada ilaalinaya ma jiraan wax isku xiraya aqoon-yahanada halka isugu yimid ayaa waxay soo jeediyeen talooyin wax ku ool ah ugu dambeyntiina waxaa halkaa lagu soo bandhigay daraasadii ay soo dhigtay dhawaanahanba ururka hadaf waxaa hadda la sheegay inay jiraan waalid aan awoodin inay iskoolada carruurtooda u diraan qaybkoodna ay dhib ku tahay waxaa jira waalid awooda kuwa awooda waxaan kula talin lahaa hadda i maqli doono insha Allah war cunugan aan awoodin hooyiisi aanay ka bixin karin iskuulka adigu caawin oo iskoolka ka bixi waayo haddii wiilkaagu jaamacad ka baxo kana suuqa galo kana abri dili doona marka waxa weeye walaalkaana nabiga calaysna waa noo sheegay wala jecelo naftaada waxaa la jeceshaa walaalkaana sidaa daraadeed ma dhacayso in la yiraahdo magaalo ay joogaan 500 carruur ah 100 baa iskuul dhigtaa bahood iyo ay awoodaan 400 kalena beertay ku jiraan marka arintaasi waa kugu soo noqonaysaa akhriya dumba warka waa inay ka qayb galaan oo dadka ganacsatada ah iyo waalidka awoodaan qayb ka qaataan Cabdinaasir Faarax telefishinka ITN Birmingham